wata daawadayaal saaxiibayaal waa toddobaadkii isboortiga ee magaalada Seattle Washington ama Somali Week Seattle Washington qubasadu u yaqaano toddobaadkan ay ciyaaruhu waxay ka furmeen magaalada Seattle Washington shalay toole taariikhda 28 ilaa waxay toos socon doontaa sabtiga foodan ugu soo haya hadii Allah wado ogolaado kooxuhu waxa iyagu markaa ku tartamayaan kuma qaadan doona finalka ama kama dambaysta koobka loo hiyan doona iyadoo walibana ay ku loolamayaan 13 kooxood oo iyadu afar kamid ah ay ka yimaadeen gobolka Washington meel ka baxsan ama gobolka kale waana hayn gobolka Washington sanad walba halkan ayaa la isugu yimaada ilaa iyo 2001 ilaa iyo haatan oo liigan socdo waxaad moodaa inuu yahay liigagii markaa ugu wanaagsan ama ugu wanaagsan ee ka dhaca magaalooyinka ee ka kooban tahay wadanka Mareykanka iyo waliba guud ahaan qaaradda North America haddaba weegan waa weegii isagu laga sugayay magaalada Seattle Washington waa weegii ugu shidan tahay magaalada Seattle waa weegii markaa iyagu fanaaniinta ugu badan ay yimaadaan waa weegii dhalinyarada ugu badani ay u soo boqolaan ama diyaaradu u soo qaataan si ay fankan wax uga qaataan haddaba maxay tahay ujeedada dadka la isugu keenayo ama loo wada ciyaarayo waa in dadka Soomaaliyeed isu yimaadaan isla markaana ay toddobaadka wada qaataan maadaama loogu magac daray toddobaadkii Soomaalida Seattle Washington yeeshay waxa si gaar ah dadweynaha loo xusuusinayaa in ciyaaruhu ay ka dhacayaan garoonka Foster High School oo isugu ku yaala Tukwila Washington isla markaana ciyaaruhu ay bilowdaan 4 galabnimo ama 10 saac qubasadu u yaqaano haddaba haddii aad ku nooshahay agagaarka magaalada Seattle iyo waliba King County fadlan u imow ciyaarahan u soo daawasho tag u soo wada caruurtaada iyo waliba waalidkaaga intaba si ay bal markaa iyagu u xusuustaan waayo iyo waliba guud ahaan waqtigii hore ee tagay ee Soomaaliya haddii iyagu ahaayeen kuwa markaa iyagu isboortiga xiiseeya iyo haddii iyagu yihiin kuwa markaa iyagu fanka iyo saaxiibtinimada iyo shakhsiyaadkii muddo hore ay kugu dambeysay inay ka helaan garoonkan lagu ciyaarayo oo ay iyagu isugu wada yimaadaan haddaba haddii ay beedmo toddobaadkan ayay soo gabagabi doontaa ciyaartan shalotole way furantay waa maalintii labaad ilaa iyo sabtigana way socon doontaa ee fadlan haddii aad ku nooshahay agagaarka King County iyo waliba Seattle area fadlan ha ka maqnaan inaad u soo daawasho tagtid Foster High School haddaba su'aasha ugu dambaysa iyadu waxay tahay sanadkan miyay ku ceshan doontaa banaadir mise dhunta ayaa loo geli doonaa waa su'aal aan jawaabaheeda waliba la kaashan doono coachka magaalada haddii Abin Cabdiraxmaan oo isagu ah ciyaaryahanadii ama waliba shakhsiyaadkii ugu horeeyay oo iyagu markaa noqda dhexdhexaadii ama arbitr qodob sidoo yaqaano isla markaana sanadkiisa labaad isagu markaa coach u ah naadiga Hon Afrique waxa garabkiga midig taagan Sheekh Cadow waa macallin hore basketball kubadda saakarka lagu yaqaano waliba jawhar gobolka Shabeellada Dhexe isla markaana dhowr sanadood isagu markaa coach u ah banaadir isla markaana ah championshipkii back to back sanadkana ninka la loolamayo oo coachka dhan ay isagu markaa loolamaya isagu noqon doono waxaan ku hormariyay Cabdiraxmaan sida uu weegan u socdo isboortiga iyo toddobaadkan sida aadka looga xiseeyo magaalada Seattle maxaad ku saleen lahayd السلام عليكم marka hore aad iyo aad ay u mahadsantahay xabeeb run ahaantii Somali Week waa week kali sanadka ku leenahay Soomaali ahaan waana week aad iyo aad aan ugu hanweenahay haddana alxamdulillah si fiican ayuu noogu socdaa anigana waxaan wataa naadiga Hon Afrique oo last year semi final imaatay aad naga badiseen semi finalka banaadirna ay qaaday koobkaas bas sanadkan waxaan rajayn doonaa insha Allah inaan ka group stages at least group stages inaan ka gudubno Cabdiraxmaan rajaduna aad ay u fiicantahay inkastoo shalay leedinka badiyay haddana rajaduna aad ay u fiicantahay waxa wata team aad u wanaagsan waliba marka aan ka hadalno waxaan dhihi karayaa the only striker ama full striker oo liiga joogan adinka wadataan maxaad rajaynaysaa gameka labaad gameka labaad waxaan rajaynaynaa gool insha Allah maantana waxaan fiirsanay Vancouver iyo Ballinford rajadeedana waxaan rajaynaynaa inaan Vancouver ka badino si aan group stages ka uga soo baxno insha Allah markaas kadibna si aan quarter finalka iyo semi finalka uga gudbi lahayn Cabdiraxmaan aad iyo aad u mahadsan yahay coachka Hon Afrique waxaan markaan u wareegayaa Sheekh Cadow oo isagu garabkayga midig taagan Sheekha waxaad maamuleysay naadiga ama soo coach garisay naadiga banaadir sanadooyin fara badan labadii sano ugu dambeysay adiga ayaa ku guuleystay back to back markii ugu horreysay Seattle ay ka dhacdo maxaad u malaynaysaa sanadkan mase kugu adag tahay challenge-ga ay muujinayaan kooxaha sanadkan inay kugu tiigsadaan inaad ku guuleyso sanadka saddexaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا ku hadlaya magaca banaadir star ahna coachkooda waxa cadeyn ah ama qofka bini aadamku uu garan karaa shalay toole ciyaartii aan ciyaaray farsamo cilad awgeed 8 qofood yaan kaga badiyay koox 12 qofood ah marka sida aniga aaminsanahay tii Ilaahay waa gooni sida aniga aaminsanahay waxaan jeclahay markii saddexaad inaan gacanta ku qaato koobka haduu Ilaahay ka raali noqdo ciyaartooydeeda waa ku kalsoonahay maamulkayga
iyo se waxay ugu qabanqaabiyaan xabeeb iyo daahir jirow ha ahaatee khibrad wax walbana waa la isku darsadaa insha allah biidnillah waxaana filayaa si sahal inaan ku qaado insha allah biidnillah waayahay ciyaartii koowaad waa noo baadi sida aad noo sheegtay inaad guulaysatay tan labaad beri ayaa ciyaari doontaa wax ciyaartu ay noqoto haddii lagaa badiyo haddaa badisidba waan garan karnaa isboortiga qaybihiisa kala duwan laakiin waxaan inaan su'aal kaa weydiiyo breshar intee laeg ayaa ku saaran inaad sanadkii saddexaad oo conservative ah ku guulaysatid iyadoo welibana sanadkan uu challenge-ga aad u badan yahay sheekh ayno waa dareemi karaa aasan magaca banaadir mar walba kooxdii ciyaaraysa inay soo adkayso reasonkaas I don't know why ma garan karo but insha Allah biidnillah aniga waxaan aaminsanahay sida aniga aaminsanahay kan waa cad madow ku bada laakiin waxaan jeclahay haduu ilaahay ka raali noqdo inaan si sahal sidii darata u qaato lafada bal yaqaan mashiidan insha Allah waa tahay daawadayaal saaxiibayaal iminkana waxaa garabkayga wada taagan laba shakhsi aad u wada garanaysaan waa Mara iyo waliba Garaar oo in badan isagu ragga magaalada ama u istaaga marka xuquuqda dadka Soomaalida ku dhaqan guud ahaan magaalada Seattle Washington iyo gaar ahaan waliba King County-ga waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo ciyaaraha socda sidoo markaa u arko iyo waliba xiise intee leeg ay u leeyihiin ka Garaar ahaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالكني وفوصر هاي وحنا لا تجانا حباب كالكال يدمان سومالي تي في علي ميديا أثر بدن وهي كمية كالكال سلاح تي في أسوال كلنا هذا قيمة بدن ويا وسومالي ويك واسكوي مادين كوعات فور بدن ككلمة قبل هذا أمريكا هذا ما نقول شيء كتمد فانكوفر iyo Arizona qoladii Stanford Minnesota yesterday baan daawanay kulankani waa mid ay soo agaasimeen Somali Week dadka officialka oo xabaabiye kamid yihiin waana mid dhalinyarada lagu bogaadinayo isdhexgalka bulshada inay noqdaan dad hoggaanka bulshada ama wanaag badan soo tabiya khaasatan waaradahan iyo hadaan bulshada aad bay noo farx gelinaysaa qof kastana kaalin buu ku leeyahay bulshada ka qaato anigu shaqada iyo tababarada ayaa umada ka saacida iyo arifkiisa level marka aad bay ii farx gelinaysaa inaan arko walaaladii hawsha ay hayeen bulshada oo isku keenan boqolaal kumaan sanadkaas gaaraya waa barnaamij mudan taageeradiisa waxaan keenay caruurta waa darkiisay warayskii kan ka horeeyay waxa coach Cabdiraxmaan Saraad oo coachka ilmahayga oo Company Lyric waana jiil soo socda way ku dhowda waxaan rajaynayaa caruurteedu next couple years inay midfielder ay meeshan ay ka ciyaar doonaan oo ciyaar wanaag wax wanaag ay soo tabin doonaan marka waa maasantiin xabib wax badan baa haysa xog badan haya waran la talaleeyo meeshan bay ka shidan tahay la isku yimaado waxaan taageersanahay hawshaad wadan bulshada ahaan maanta aad iyo aad mahadsantahay Cabdiraxmaan Garaar ayuu kaasi ahaa markana waxa ila taagan Mara in the house Mara waa nin si aad looga yaqaan magaalada Seattle Washington qaasta isboortiga marka laga hadlayo iyo waliba qaybta qaraxaynta kaftanka yimaadii sheekooyinka waliba Mara sideed u aragtaa guud ahaan Somali Week iyo waliba labada maalmood oo maanta socdo إنما عادي معها حبيب هذا وما سنتهاي تيفيga Somali Channel aad buu ma san yahay runtii de sanadkii oo dhan waxa ku jiro week dahabi ah weegaasna waa weegan hadda socdo week la xaqir kara ma waxa weey waxa kamid ah runtii dhalinyaradii iyo waxa isu imaanayso sportska inta jecleed oo dhan bahda sportska runtii waxaan ku jirnaa jawi aad u fiican labadii maalmood ugu horeysan ku jirnaa so far teamka si fiican u soo bandhigeen ama u muujiyeen ciyaarahoodii waxaan rajaynaynaa ama leenahay teamka wanaagsan unbaa badinayo ama ha noqoto disciplineka ama ciyaarta ama wax walba Mara waxa taageerta teamka taageerta Mara wala qarin laakiin waan sheegi maanta ma fahanti waa jeclaan aad aniga teamkan wato waa kaftamay team la qarin kara maaha waa Banaadir Stars Banaadir FC runtii xabeeb uu ka yahay maaragtay manageerinta anigana aan ku jiro manageerinta iyo administrationka runtii gamekeenu ugu horeeyay shalay baan ciyaarnay waana badinay gameka labaad waxaan leenahay Britola haduu Ilaahay raado watay daawadayaal waxaan daawanay qadar yar ka hor ciyaariyadu markaa dhex Eagle oo waliba iyadu ka guuleysatay sidaan maleynayo LLBB Janyo hadaba waxaan la jooga general manager-koodii iyagu waxay noogu yimaadeen gobol kale waxaan ku soo dhaweynaa markuu ugu horeysa Seattle Washington welcome back welcome aan leenahay saddex dhibcoodna waxaad maanta ku qaadateen akoonkiina kugu jirtaa sidee baad u aragtaa guud ahaan miyuu istahila driving-kii aad u soo sameyseen ama diyaaradii aad u soo raacdeen iyo waliba waxaad halkan aad kala kulanteen ka tournament ahaan
السلام عليكم ورحمة الله سمير ما شاء الله سيدا أملينا سكفة عن نغتي وأقل متى تؤلف وصدا توني أو أصلا كحيلة جاري أنا جو يوتا كي معني حتى كوب مركل لوجودي مقالة دينا سيدا أو كلامها تاجر ما شاء الله تاجر في عنا جوجان كوحي قطر الملاعبين جوجان كوح والبس ما دانتو قفل بحفرده ذي وتاني ير وين مركا حشمت في عنا كيل جودي مع everything ما شاء الله قرون في عواي جويجا هودا ما شاء الله وأقل ما درايفين العقل بالو قرش كريكرة وأقل ما تدفع عنا واجوجا ما شاء الله